السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا وبرنامج كيجي أها وحسويدين وحاعاوة إنوغو مرتئة عبدي ويسوو كمدا ورياشا أغو عانسان صومالي ذا جوكتا قبلكا مينيسوتا. عبدي أيا وحو كترسن يحي ورياشا أغو هوريي كاشقا قلها قبلكا مينيسوتا قاسحان magaalada Minneapolis isagoo la shaqeeya Somali Media iyo Universal Kaba. Abdiyaar ayaa qaas ahaan waxaan doonayaa caaw inaan ka wareysto waxyaalo ku saabsan deegaanka Qaatumo iyo hogaamiyihii hore ee SSC Salebaan Xagla Toosiye oo isagu hadda u xubsiibtay maamulka Somaliland. Marka ugu horeysa Abdiyaar ku soo dhawow shabakada radio SSC waxaan jeclahay Cabdi bal horta in aan wax ka weydiiyo markii ugu horeysay ee aad maqashay Salebaan in uu ka hawlgalay magaalada Hargeysa arintaas siday kula muuqatay أحمد والله وحن كلها مركور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أحمد waxaa jeclay marka hore inta inaan arinta Salebaan u guda gelin inaan ku salaamo adiga iyo dhamaan asxaabta kula shaqeysa ee Boocame iyo website-yada iyo gaar ahaan radio SSC oo aan jecelahay inaan idin mahadnaqo 100% hawsha weyn ee aad u haysan jaaliyada Khaatumo State waana hawl runtii aan qof keligii qaban karin hawl u baahan in dad badan qabtaan waana baahida ugu weyn ee miiriyaha ay u baahan yihiin dadka deegaanada dega aad baan Axmed ku mahadcelinaya adiga dhalinyarada hogaamisa radio SSC waad maasantay su'aashaada weydiisay ee ku saabsan ninka la yiraahdo Salebaan runtii sida aad u maqashay ayuun baan u maqlay wax la yaab leh oo aan la yaabana iguma noqon inaan Xagla Toosiye la yaabo in uu tagay magaalada Hargeysa waxa aan aad la yaabo maahan inkastoo aan runtii arkay dad fara badan oo Khaatumada ka tirsan dhalinyaro iyo dumar iyo caruur iyo waayeel baa noqoto oo aad la yaabo laakiin aniga runtii wax macna leh oo badan ama different ay sameysay ma jiran Axmed waa maxay sababta ayaan macnaha kuugu sameyn sida aad ogtahay Salebaan ma uusan ahayn shakhsi inkastoo de shakhsi bini aadana uu yahay hase ahaatee waxa uu ahaa ninkii ku magacaabnaa hogaankii loo bixiyay mideynta iyo xoreynka taasoo shaqadiisa ay looga dhigay in deegaanada SSC ay ka xoreyso maamulka Somaliland miyaynan kula muuqan wax weyn arintaas teeda kale mujtamacii Soomaalida ahaa oo ay dadka SSC ay lahaayeen waxaan u taaganahay Soomaalinimada sinaanta iyo cadaaladda miyaynan ku ahayn qiyaamo miyaan sameeyeen kula muuqan arintan Abdiyaar wax la yaabo Axmed markaynu dib ugu soo noqono arintan sababta aan u leeyahay aniga wax weyn ilama muuqato Salebaan sida aad ogtahay wax shaqo ma wahan xilligan hadeer wax shaqo oo hayay SSC iyo maamulka Khaatumo ma jirin muddadii 8 bilood 9 bilood hadda lagu jiro Salebaan wuxuu ahaa nin shaqo la'aan oo xilkii SSC-na ay isu bedeshay state ama maamul dhashay oo bulshada deegaanada SSC loo oran jiray u dhashay marka wuxuu ahaa nin shaqo la'aan haysay oo aan maamulkan Khaatumona gacan ku hayn maamulkii hore SSC-na marka xilkiisa dhamaaday oo dawladnimo dhashay marka waxay ila muuqatay in qof shakhsi oo keligii oo Hargeysa tiguu maanaga ila muuqato mar haddaan xil bahayn Cabdi waxaa jirta arrimo aad ay ula yaabaan dadka Soomaalida ee aan deegaanka aan ka iman ee ka yimaada deegaanada kale ee Soomaalida waxaa kamid ah tusaale ahaan maamulada Soomaaliya ka jira aad bay u kala go'an yihiin waxaan ognahay Somaliland qof ka tirsan ma soo aado Puntland qof Puntland ka tirsan tusaale ahaan Galmudug oo kale uma shaqo tago waa maxay waxa kalifa dadka deegaanka kamid ah iyagoo og in dadkoodu ay ka soo horjeedaan maamulkaas in mid marba mid uu tago oo maamulka uu u aado ma maamulkaas ka dambeeyo waxaa la sheegaa in lacago laaluusha iyo faragelin badan ay ku hayaan waa maxay waxa sababaya dadkan oo ku geynaya magaalada Hargeysa
axmedow waa run wax la qarin karo waa waxa sida qoraxda u cad in dad fara badan oo beesha u dhashay oo ama madax hore lahaa ama madax dambaba lahaa ama niman xilal hayay ama niman aan xilal haynin ay mar walba tegayeen run ahaantii horta markaynu dib isula noqono dadkan yaacaya ee geedkii ay deganaayeen ama buulkii deganaayeen ka baxaan buul reer kala tegaya ma ahayn nin horta markiisa shaqaba u hayay horta dadkan laga bilaabo January lasoo dhaafay amaba xilliyadii October SSC ay jirtayba wixii ka horreeyay ma jirin maamulo la sameeyo oo awood yeesha ama hana qaadaba sababaha keenaya dadkan inay yaacaan 20 sano ee dawladda dhexe ee Soomaaliya ay meesha ka baxday waxa jiray maamulo ka dhismay hareeraha iyo goboladan SSC la yiraahdo ee khaatimatan deegaanka khaatimo lagu magacaabo oo iyagu maamul lahayn wax qabadna aanu markaa gudaheeda ka jirin ama dhaqaale ha noqdo ama mid kale oo military ha noqdo ama nooc kasta ha noqdo dadkan markaa meelaha ay waxay ahaayeen dad iyagu baahidooda shakhsi ahaaneed ama danahooda gaarka shakhsi ahaaneed meesha u tagay niman saaxiibtinimo markii hore ku galay baa jira Hargeysa niman ku tagay qaraabo iyo ehel iyo hablo la kala qaba iska jiri kara oo ku tagay nimo baahi ay u geysay oo dhulka deegaanka ay ku nool yihiin eegi waayay baa jira oo arki waayay waxyaabaha runtii anigu aan la yaabo state-kan ila Khaatimo state amaba SSC qof walba sidoo yaqaano xilliyadii hore la kala oran jiray khayraadka dhex yaala gudihiisa haday noqon lahayd wax aan qarsoonayn oo caadka ka cad example haddii aan ku soo qaado labada dekedood ee la yiraahdo dekeda Berbera iyo dekeda la yiraahdo Boosaaso waxa ay ku tiirsan yihiin ama ay ku dhaqdhaqaaqaanba waa xoolaha nool ee laga helo maamulka Khaatimo iyo deegaanada dadka Khaatimo ku aftirsada ay degaan dadkii aqoonta lahaa ee dhulka joogay ilaahay wuxuu tusi waayay khayraadka dalkooda ku jira dihin dekadahaasina aanay shaqaynayn haddii aan xoolahaaga loo isticmaalayo ama Boosaaso ha noqoto ama Berbera ha noqoto markaad leedahay waa maxay sababaha ku kalifayaana ma oran karayo wadana siyaasadeed waa shakhsiyaad aan kalsooni ku qabin naftooda iyo deegaankooda iyo dadka ay ka dhasheen waa dad mar walba aad moodo inay dhinaca maskaxda ay ka kala dhantaalan yihiin ceeb maaha qofku uu tagi karaa shaqo Hargeysa iyo Boosaaso ama Garowe laakiin kalsooni baan jirin baan u aqaanaa anigu ama aan aaminsanahay inaan ku noolaan karin dhulka uu ku dhashay ee ilaahay ku beeray ilaaha awoodda badan ee dhulka qaybiyay qof walba wuxuu siiyay deegaan dadka qaar wuxuu siiyay dhul desert ah oo lama deegaan ah dad baa aaminay dhulkooda shakhsiyaadkan waxaan u aqaanaa shakhsiyaad kalsoonidu ay ka maqan tahay qofka haddaan isku kalsoonaanayna Axmed waa dareemi karaysaa baan u maleynayaa wax kasta wuu samayn karaya adiga ma garanaysaa kule waxaa jirta waa dhaweyd mar idaacadaha laga soo daynayay dekeda Boosaaso xoolaha laga dhoofiyo waxaan ii muuqatay neefka xoolaha ah in lagu cashuuro $230 waxaan u maleynayaa neefka ariga ahna in lagu cashuuro sida haddaan qiyaasteeda saxsanahay $12 halka neefka lo'da ana uu yahay $20 lagu cashuuro xaqiiqdiina waxaan ognahay cashuurta xoolaha inay tahay waxyaalaha ugu weyn oo ay dekadaha ay ku dhisafan yihiin ama waxa laga dhoofiyay ama waxa laga soo dejiyaba taasoo ay nasiib darro tahay in deegaanada ay xoolaha ka yimaadaan uusan maamulada ayan ku celin wax dhaqaalaha oo cashuurtaas kamid ah haddii aan ku weydiiyo arrinta Saleebaan anigu dad badan oo deegaanka kamid ah waxay ila muuqatay arrintan dhibaato aad u weyn dhibaatadana waxa ila ka dhigay yani ninkii dhamaa ee mar u magacawnaa ama sababay dagaaladii ka dhacay deegaankaas oo ay ilaa iyo hadda colaadoodii taagan tahay dhaawicii dhaawacmay uu dhaawacan yahay meydkii dhintay ay maxaan ku dhahdaa haweeneydii ayanba weli asaydii dhigin ninkii wax aasoo dhan u sabab ahaa sababtoo tahay waxaad og tahay intii ayan SSC ayan iman deegaanadan wax dagaala kama uusan taagnayn oo sababtoo tahay wax hadafoo mideeye ma aysan jirin hase ahaatee xilligii SSC waxaa bilowday dhaqdhaqaaq siyaasadeed waxaa bilowday dhaqdhaqaaq military oo ah maamulka Somaliland la iskaga difaacayo miyaynan ahayn wax aad looga naxo ninkii dhamaa ee sababta u ahaa waxaasoo dagaala
iyo waxaasoo dhibaato ah in uu maxaan ku idhahdaa maanta uu ka dhaqaajiyo oo uu tago iyadoo aan weliba la heshiinin maamulkii uu kasoo horjeeday. axmedow waa su-aal fiican in adeero xaqiiqdii horta aanu dib igu yaro noqono arrintan saleebaan iyo arrintan aada leedahay caalamku amaba dadka soomaaliyeed ama ururadan u shaqeeya hay-adaha united nationka iyo xuquuqda bini aadanka iyo hawlahaasba iyo maamuladan labada dhinac actually meesha ka xigaba inay waxay la yaabaan ay noqoto si marka loo eego runtii dadka aan aqoonta badan u lahayn saleebaan iyo maamulkiisa iyo s c ba way la yaabayaan xilligan waxay odhanayaan ninkii magacaa qaatay inta darajada noocaasa gaadhay ee dadkiisii dagaalamay dhibaatada intaa laga soo gaadhay sababta ku kaliftay inuu somaliland tago waa wax runtii aada loola yaabo dadka qaarkii inta aan dee laakiin u ahayn xogogaalka ama aan xaaladiisaba saleebaan la socon aan dib igu yaro noqdo arrintii uu madaxda ka s c mideynta iyo xoreynta waa laba hay-adood ama laba shaqo oo kala duwan oo midna ay tahay mideyn in bulshada deegaanada s c degta laysu keeno oo miiska laysku keeno oo ay isku mawqif iyo ujeeda noqdaan oo ahayd qeybtii mideynta qeybtii xoreynta ee militariga ahayd ee gacanka hadalka ahayd iyana waxayd qeyb gaara qeybtii mideynta ee saleebaan uu gacanta ku hayay qeybta mideynta ee xoreyntana gacanta waxaa ku hayay marka cali sabarey corneylkii oo isagoo ahaa ninkii dhinaca xoreynta ku hayay sababta aan hadalkaa u keenay ama aan usoo kala qaadayna waxay tahay labadooda hogaankii mideynta iyo xoreynta qeybtee baa guulaysatay oo midho dhal noqotay iyo qeybtee ayaan guulaysan oo noqday wax baaqday ama dib u noqday oo halkii la doonaya aan gaadhin qeybtii dagaalka ee militariga ee xoreynta way guulaysteen maasha allah ilaahayna garabkooda wuu galay dadkii s c taageersanaa xilliga amaba khaatumo state ka tirsanaa dumar iyo rag iyo caruur iyo waayeel qof kasta oo jaaliyada s c ka tirsanaa hiil iyo hooba wuu la garab istaagay hadday banaanka noqon lahayd iyo hadday gudaha dalka noqon lahaydba hawshoodiina meel fiican bay martay 90% baan odhan karaa iyo 9 ayay ku guulaysteen dagaaladii ay gelayeen ee ay kusoo qaadayeen dadka cadowga u ah ee diidanaa markaa qeybtii mideynta ayaa hadhay muxuu qabtay saleebaan baa taalla markaa anigu shaksiyan cabdi ahaan waxaan arkaa saleebaan inuu ku guul daraystay ama uu dhalin kari waayey uu isu keeno cuqaashii xilligaasi joogtay ee kala wada mawqifka iyo kala ujeedada ahayd aqoon-yahankii beesha ka dhashay ee kala wada mawqifka ahaa maamulkiisi isaga gacanta loo geliyey inta nairobi lagu dhisay malaayiin dollar ay ku baxday gacanta loo geliyey in aanu waxba ka qaban laakiin dhaqdhaqaaqa magacan soconayay marka ee dabayshu ay wadatay ee s c wuxuu ahaa dhaqdhaqaaq ka yimid dagaaladii markaasi dhacay ee ku beegmay xilli loo baahnaa ee ay dadkuna taageereen ayaa bulshada inta badan waxay ilowday hogaankii mideynta inaanu saleebaan waxba ka qaban waxay arkeen un hogaankii dagaalka ee furnaa marka ee guulaha gaadhayay marka runtii xilliyadaasi saleebaan wuxuu tegay magaalada bohoorle boocame dhowr magaalo oo ka tirsan deegaanada gobolka ayuu tegay waxaad ka garanaysaa in uu qeybtii mideynta wax badan ka qaban kari waayey markii bohoorle tegay oo ah magaalada asal ahaan isagoo kasoo jeeday oo ku dhashay waxaa degan caaqilo fara badan waxaa degan aqoon-yahan waxaa degan waayo arag waxaa degan haween ama dadkan guudkood loo yaqaano saleebaan wuxuu awoodi kari waayey inuu publicly dadka isugu yeedho oo hal mid ka dhigo iyadoo ay joogaan caaqilo awood leh aqoon-yahan nimanka dhinaca diinta hogaanka haya ee wadaadada ah ee dhalinyaradii inuu meel isugu keeno ayuu awoodi kari waayey waana wax cad oo aan qofna ka qarsooneyn laakiin guulaha faraha badan le ee dadku ay isaga creditka ku siinayaan waxay ahayd qeybtii militariga ee hogaankeeda oo cali sabre gacanta ku hayay oo iyagu noqday dad meel mara oo waxoodii ay muuqdeen dadkan la yaaban hadda inuu saleebaan ku tago somalilandna runtii waxaan umalaynayaa de qofku marka uu xil ku hayo waad garanaysaa mid kamid a saraakiishiisii militariga oo la oran jiray kayse cabdi yuusuf oo isagoo har cad isagoo dagaalkii xabadii dhacaysa uu dhinaca kala tegay in meesha aan wax badani jirin dadka aanay u muuqan baan umalaynaya xilliga laakiin
wadadii uu maray saraakiishiisii militariga mid kamidi ayuunbu Saleebaan maray umana malayn maayo inay dadka reer Buuhoodle reer Laascaanood reer Taleex reer Ceergaabo ama deegaanada ISIS u dhashayba ay wax ka bedeli karayaan Axmed xagga kale haddii ku weydiiyo maxaad u malaynaysaa oo ku kalifay in uu siilaayo maanta jagada cusub uu u magacaabo waxaa la sheegaa dadka qaarkood markii dabay uu joogay siilaayo sidaas oo kale waxaa joogay Cali Qalib Galayn saan war ku hayna waxaa joogay sidaas oo kale Saleebaan waxaa la sheegaa in condition siilaayo uu codsaday in ay qaatumo isarkaan ay qaatumo condition saddexa hordhigeen oo ay kamid tahay deegaanka inuu ka baxo in aan lagula hadlin shaqsi ama qabiil ee lagula hadlo maamulka qaatumo saddexdii shuruudoodna uu diiday kadibna uu halkaa uu Saleebaan uu ay ku wada hadleen sidee kula muuqataa horta magacaabidda waa maxay siyaasadda siilaayo uu ka leeyahay marka koowaad dadka qaar waxay yiraahdaan international community-ga ayaa cadaadis badan saaray inuu maxaabiis sii daayo sidee kula muuqataa maxaabiisi uu sii daynayay iyo waa maxay ujeedada siilaayo uu ugu magacaabay position-kan ma qiraab raba inuu reer Buuhoodle ku dhex abuuro waa maxay ujeedada aad isleedahay haddaad ka fikirtay arrintan Axmedow arrintan siilaayo markaan usoo noqono iyo sababta xilligan uu booska u qabtay iyo sababta xilligan Saleebaan shaqada u siiyayba waa wax cad weeye waana wax muuqda oo cad weeye arrintan Saleebaan maxaabiista xaqiiqada marka loo noqdo oo dad badan ay og yihiin baan filaya oo diaspora ama banaanka jooga ay og yihiin arrintan waxa ka shaqeeyay hablo la yidhaahdo Khaatumo women diaspora ama hablaha qurba jooga Khaatumo oo ama Ingiriiska ha deganaadaan ama dalalka Norway iyo Yurub ha deganaadaan iyo Canada iyo Mareykanka aan joogno ayaa arrintan ka shaqeeyay arrintanna waxay soo socotay muddo 5 bilood ah ayay socotay waraaqihii ay u dirayeen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka United Nationska hay'adaha xuquuqul insaanka ee tacadiyada ku shaqada leh ay hablahan qurba jooga beesha u dhashay ay u dirayeen iyo jawaabihii loo keenay oo aniga shakhsiyan cabdi ahaan aan indhahayga waraaqaha ay sida department-ku ugu soo celin aan ku akhriyay wuxuu ahaa programkan in la sii daayo raggaasi bisha Ramadaanka mar walba programka ku jirtay laakiin dhibaato ma leh Saleebaan credit-ka uu qaadan karaa waa nin beesha ka tirsan oo aan laakiin maamul hayn arrintan ciidamada meesha laga qaadayna waa wax cad oo iyaduna dhibaato ma leh Saleebaan credit-keeda uu qaadan karaa taa laakiin haqaata maxay ku dambeysay darajadii faraha badnayd ee quruxda badnayd ee dadku shacabka ugu garaacayeen ee Saleebaan ahayd SSC waxay ku dambeysay maanta inay dhaxalsiiso in uu joogo ninkii shalay uu qoriga u sitay gurigiisa maanta uu marti ku yahay waxyaabaha uu Siilaayo jeclaystay isagu Soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin daad qaaday xunbo cuskay Siilaayo laftiisaan meel haysan sababta aan ku leeyahay Siilaayo laftiisaan meel haysanna dalka waxa ka dhashay baa la yidhi dawlad rasmi ah oo ku meel gaarkii ka baxday waad arkaysaa dhibaatada Siilaayo haysa in wasaaraddiisa arrimaha dibadda ay shaqayn weyday in dad badan oo ku sheegay isagu safiiro oo qurba joog ahaa oo dalal badan oo Yurub iyo Afrika uu joogay uu soo wada celiyay dalka keenay in wasaaraddiisa arrimaha gudaha iyo maaliyadda raggii madaxda sarsare ka ahaa ay maanta xamar joogaan baarlamaanka ku biireen marka nin daad qaaday xunbo cuskay Saleebaan haddii uu yeedhay Saleebaan ma aha shakhsi wax ka bedeli karaya siyaasadda Khaatumo state ee dadkani ay go'aan ku gaareen inay maamul ay leeyihiin labada garab ee hareeraha ka xigay Garowe iyo Hargeysa ay ka dhistaan sababta aan Saleebaan waxna uga bedeli karin waxa kamid ah Hargeysa cidda joogto waa taqaanaa ee beesha ka tirsan odayaasha jooga waa taqaanaa aqoonyahanka beesha u dhashay ee Hargeysa jooga waa taqaanaa inta nin ee aad taqaanid ama xaabsada ha yeesho ama baasha ha yeesho ama wasiiradan kale ee maaliyadda ee ganacsiga u kala jooga ha yeeshaan ama fu'aadba ha yeeshaane waa rag la soo joogay 20 sano ee Soomaaliya burbursanid Hargeysa joogay haddii Saleebaan wax bedelayo nimanka waaweyn oo ka odaysan oo muddo la shaqaysanay nimankan barbarka inaga xiga ayaa jooga kuwaas wax bedeli kar lahaa u malayn maayo Saleebaan in waxba bedeli karayo Axmedow
waxaa dadka qaarkood ay yiraahdaan Somaliland ta ama beeshaas waxay fahmeen qaabka ay jilibada iyo qabiilaadka ay u kala qaybsan yihiin ama ay yihiin dadka qaar baa waxay yiraahdaan sida siyaasadii magaalada Laascaanood ayay Somaliland ka rabtaa inay buuxoole ku dhabarjabiso ama ay ku qabsato iyadoo sida ama xaabsade ama aynu niraahne ina cambaashe oo kale xagla toosiyana rabtaa inay u hubayso siyaasad ahaan u taageerto kadibna uu buuxoole u qabto maadaama cabdiyo adigu naftigaaga aqoon fiican aad u leedahay deegaankana adiga naftigaaga aad reer buuxoole aad tahay ma u malaynaysaa in dadka qaarkood ay hadda hadal hayaan inuu kusoo noqon doono deegaanka ma kula tahay inuu deegaankaas kusoo noqon doono isagoo ciidamo iyo maamul dhammaystiran oo Somaliland wata axmedow qofka bini aadamka lama saadaalin karayo saadaasha in qofka la saadaaliyo waa wax aada u adag oo ilaaha awoodda leh ayaa inoo sheegay qur-aankiisa inoogu sheegay waxa beri dhacaya inaan la ogaan karin anigu ma ogaan karayo calooshiisa waxa ku jira laakiin waxaan dareemi karayaa wuxuu jecel yahay inuu sameeyo mid baase iga dardaarana ama iga balana deegaanka Laascaanood oo aynu ognahay inay gacanteena ka maqan tahay magaalada Buuhoodle sida aan war ku hayo anigu weligii ma tegin mana arag laakiin deegaan ahaan waan kasoo jeedaa waana dhulkaygii oo khaatimo ah waxaan ku leeyahay Buuhoodle wax lagu qaado ka weyn axmedow dadka reer Buuhoodle ee deegaanka jooga ee khaatimada ah waa dad ka saafi ah lugooyada waa dad ka daacad ah waxa ay doonayaan inay qabtaan dadka deegaanka degan way ku jiraan shakhsiyaad fara badan oo aan jeclayn horumarka ay beeshu gaarayso ama ay khaatimo gaarayso ama iftiinka iyo quruxda iyo ubaxa baxaya inay wax ku darsadaan dad aan jeclayn way jiraan hadday noqoto nimanka la sheegay maalin walba la leeyahay waa wadaado nimanka kale iyagu magacyada sheegay meesha jooga laakiin waxaad ogaataa axmed saaxib muddadii anigu aan ku jiray dhinaca miiriyaha ama saxaafadda waxyaabo badan oo Soomaaliya aan tagay oo aan ku arkay ama xamar ha noqoto ama baydhabo ha noqoto xiliyadii Cabdullaahi joogay oo indhaha soo saaray waxa dadka Buuhoodle inay ka duwan tahay oo dadka deegaanka degan ay og yihiin waxay doonayaan iyo waxay diidayaan una malayn maayo Saleebaan bad sheegaysa iyo 20 kale ee ku maqan meesha hadday ciidamo kala soo kaxaystaan inay Buuhoodle ku qabsan kareen dadka Buuhoodle gaar ahaan ilaahay ha ka abaal mariyay guud koowaad iyo dadka la fikirka nadiifta ah wataaba waxay og yihiin cadowgoodu qofka uu yahay waana og yihiin qofka cadowgooda ee heshiis kala geliyaan hooyada joogta Buuhoodle ama joogta deegaanada kale ee khaatimo ee wiilkeedii quruxda badnaa salay xabada lagu dhufanayay ee meel lagu xabaalay iyo meel uu ku dhintay aan ka warahayn laakiin ay ogtahay kaliya axmedow in ilmaheedii quruxda badnaa dhintay in odaygeedii 90 jirka cirada lahaa qori qaatay oo u dhintay inuu dadka yaryar ee meesha ku haray maatada difaaco u malayn maayo inay maantana shilimaad hargeysa laga soo qaatay ama Garowe Buuhoodle lagu qabsanayo Buuhoodle axmed sideen ku sheegay oo magaalo ka weyn wax go' lagu qaataa ama wax shilimaad la siisto waxaa jirta oo aan rabaa inaan iyadana sidaas oo kale aan ka wareysto waxaa jirta in dadka deegaankan ay mar walba si fudud ay uga baxaan laakiin cid maxkamad saarta ama cid xukun ku xukunta ama maxaan ku radaa cid tiraahdo qofkaas waxaasaan ku xukunay oo dembigaas kale aysan jirin waxaad ogtahay hadda caawa aanu hadlayna Mareykanka waxaa lagu xukumay nin dhalinyaro oo Soomaaliya maalintii shalay ninkaasoo lagu eedeeyay in uu taageerayay ururka Al-Shabaab halkaan uu dembi ku mutaystay laga yaabeena xabsi daa'in loo diro dadka qaarkood waxay tilmaamaan inay aaminsan yihiin in dadkan haddii la xukumi lahaa oo ay maamul ama dadka deegaanka ay oran lahaayeen qofkaas waxaanu ku xukunay dil ama qofka waxaanu ku xukunay xarig hadduu deegaanka yimaado inay wax ka bedeli lahayd ma kula tahay ama qaatmaha noqota ama dadka deegaanada ha noqotee nimankan horgalayaasha u ah dhibaatadana ku haya deegaanka sida hadda Laascaanood oo kale waxaa lagu leeyahay dadka xirxira ama dadka dhibaateeya ama dadka soo rufiyaamo waa dadka deegaanka ah ilaa iyo haddana maan maqal wax xukun oo ay qaatumo ay ku ridi adigu ma kula muuqataa dadka in xukun adag laga soo saaro oo ama xeer laga wada dhigto
axmedow ninka caqliga saliimka leh ee sida wanaagsan u fikiraya ee daacadnimada ku jirto ee og buulka uu ku dhashay ee mandheertoodii taallo intuu banaanka uga baxo cadow kusoo hogaaminaya umalayn maayo qof waalan mooyo qof fikiraya inaan u sheegi karayo o odhan karayo go-aan ka gaadh dadka deegaanadan degan ee khaatumo meeshay rabaan khaatumo isayda ka degaan waxay baranayaan hadda anigu uma arko inaan ku canaanto ama aan ku maago uma arko yani maxaa waxa u qaban weydeen ilmaha yari caloosha lagu qaadaa wuu dhashaa naas baa la siiyaa caanaha laga jaraa socod buu bartaa wuu koraa ilaa uu soo gaarayo xiliyadii uu isagu lafiisa isu daberi lahaa khaatumo state dadka deegaanadan degan waxay baranayaan imika ama ay arkayaan kii cadowgooda ahaa waxay arkayaan inay ismaamuli karayaan waxay arkayaan inaan nin kale oo shisheeye intuu yimaado aanu maamulin ilamaa iyo xilligii daraawiish laga soo gaadho ilamaa iyo maamulkii maxamed siyaad barre ilamaa maamuladii ka dambeeyey ee cabdillahi yuusuf iyo ina cigaal ay labada garab inaga maamulayeen waxaynu u shaqaynaynay ummad kale ilaahay wuxuu inaga qariyey quruxdeenii sharafteenii xooggeenii in aqoon-yahankeena oo soomaali ugu qaalisan xaqiiq waxa la xaqiri kara maaha marka professorskaaga iyo dhalinyaradaada yaryar ee hadda kacday ee khaatumaysan aada aragtid haweenkaaga dadaalaya ee meel walba taagan ee hiilihooba kula garab taagan markaad aragtid uma baahanaysid axmed inaad isu ka tagtid hargeysa iyo magaalada garowe ama xamar waxaynu baranaynaa oo aynu ku jirnaa processkii barashada isxukunka hogaanka dhulka adu aada leedahay oo waxaynu ka baxaynaa xilli xun oo ina soo maray axmedow oo soomaaliya oo dhami aynala qabtay waxaa xamar iyo ka dhacayo koonfur aada arkaysay marba maamul isu bedelayay marba wardlord isu bedbedelayay laakiin hadda waxaan u arkaa inay dadkii horumar iyo kasoo sameynayaan oo dhinaca maskaxda ka korayaan oo inay ismaamulaan kii xun ay yimaadaana nin ku karsoomi kara maaha buuhoodle laascaanood boocam iyo talax iyo ergaabo iyo xudun nin ku karsoomi karaya maaha waa waddo soo socota waa horumar la gaarayo waa generation soo baxaya oo la soo baxaya inay iyagu yihiin dadkii isxukumi lahaa berina dadkooda xukumi lahaa oo nabadgelyo soo celina axmed aada iyo aad baad umahadsan tahay ugu dambeyntii haddii aan ku weydiiyo maamulka hadda khaatumo intuu jiray wax badan baad moodaa inuu qarsoomay wax badanna waxaa la rabaa in lasii qabto waana runtaa qofku intuu dhasho horey kama durduriya wakti bay qaadataa xataa diinta islaamka xintigii nebigu u fidinayay oo barashada keliya ay ku ekayd ayaa waxaa la yidhahdaa 23 sano ay qaadatay marka qofka bini aadanka marka hore waa in wixii uu ogaadaa kadibna uu ka ficilo qaataa dhaqaale ahaan ama siyaasad ahaan inta uu qofku uu kasoo kabsadana waxay qaadan doontaa muddo badan maadaama uu shir kale laga yaabay uu soo socdo oo taleex ka dhici doono oo la fiirin doono maamulka khaatumo waxa u hagaagay iyo waxyaalaha loo baahan yahay in la saxo tala ahaan maxaad odhan lahayd wixii ay soo qabteen ha ku kordhiyeen axmedow khaatumo waa maamul cusub waa hoggaan cusub waa nuur kusoo biiray deegaanada s c waa nuur kusoo biiray ummadda soomaaliyeed waxaan ku xusuusinayaa oo keliya maanta waxaa la yidhi dowlad federaal aynu gaadhnay maalintii khaatumo magaalada taleex la isugu yimid taleex taariikhdeeda waa taariikh aan qarsooneyn waa taariikh aan qofka soomaalinimada ku jirto aanu xaqiri karin inkasta oo aan magaalada garoowe iyo hargeysa aan laga jeclayn magaalada taleex magaceeda marka la maqlo ay tahay xaruntii iyo xuduntii gubanimada sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ay ahayd meesha ay ka bilaabantay magaalada taleex ee hadda caasimada maamul goboleedka khaatumo iyadoo aada ogeed xilligii xorriyadda aynu keennay inay soomaali weyn dib u dhalatay maalintii dhaweyd muddo dhowr bilood ka hor markii ay shirtay khaatumo meesha lagu sameeyey ee maamulka a c c lagala wareegay ee khaatumo la dhisay waxaad arkaysay inay cuqaasheenii garaadadeenii alla cimrigooda ha dheereeyo caafimaadna ha ugu daro in ay soo baxday muqdisho ay tageen in dawlad soomaaliyeed dhalatay khaatumo waxqabadkeedii wuu muuqdaa wax qarsoomeyna maaha laakiin maxaa hortaagan khaatumo waxaa hortaagan dhibaato aada u fara badan oo u baahan sabir waa sidii marka hore aan kusoo sheegayn kulaa bulshada reer khaatumo hogaanka hadda khaatumo haya waa 3 madaxweyne haya 3 madaxweyne ee xilka hayay axmed craas xilligii uu madaxweyne axmed craas kusoo beegmay xilli adag bay ahayd xilli colaad iyo dagaal ay socdaan bay ahayd xilligii kusoo bedelmay
madaxweyne dhasheel waad arkaysaa iyaduna waa isla xilli aan xilligii waxba dhaamin khaatumo waxyaabihii ay qabteen waa wax ku cad taariikhda soomaalida muqdishona yaalla garowna yaalla magaalada hargeysana yaalla waxaan xasuustaa axmedow haddii aad wakti siinaysid xilli kamid a xilliyadii ay magaalada muqdisho dagaalada faraha badan le ka dhacayeen ay nimanka warloodhadii joogeen baan anigoo la socdaa qolo gaala ah oo wariyayaal ah baan xamar tegay waa sagaashamiyadii marka anoo maraykanka tegay maalin maalmaha kamid a nin kamid a warloodhadii xilligaa awoodda badnaa ee xamar joogay baanu doonayna inaanu barnaamij ka samayno laba baabuur oo nu wadanay land cruisera waanu daba soconay ninkaa madaxda oo 100 baabuur wata sidii aanu daba soconay aanu ku soconay xarunta isaga xafiiska u ahayd baabuur kamid a baabuurtiisi isaga staafkiisu wateen baa nin kamid oo qoristaa gaarigii ka dhacay markuu gaarigii ka dhacay baabuurtiisu may taagin waa wadada dheer ee la yidhaahdo wadnaha xamar qofkii garanaya horteeda ayuu ninkii gaarigii kaga dhacay baabuurtii ciidankaasi intaa la keeday ninka warlordka hogaaminaysay hal qof oo istaagi ma jirin gabar cadaan oo qaybtay anu aan la socday saareed baa tiri war gaariga ninka ka dhacay maxaa la isugu taagi waayey dib baan ugu soo noqonay axmedow ninkii markaan ugu soo noqonay isagoo dhaawacmay oo gacan ka jabay baanu qaadnay gaarigaanu saarnay anigaaba ahaa qofkii su-aasha soomaaliya ku weydiiyey inta kale ila socotay ajanabi bay u badnaayeen waxaan ku yiri war heedhe askari baad ahayd ninkaa madaxda halkaa maraya baad ilaalinaysay gaarigina waad ka dhacday maxaa la isugu kaa taagi waayey wuxuu igu yidhi axmedow su-aal runtii aniga ilaa hadda sawiradii aan maalintaa ka qaadayna gacantaydan ku hayay videogii oo dadka ajanabiga ana aada ula yaabeen wuxuu igu yidhi ninka askariga ah anigaa u baahan ninkaa hadda aan ilaalinayay anigaa u baahan sababta qori baan haystaa qorigeygaan ku ilaaliyaa si aan nolol maalmeedkayga u helo ujeedada hadalkaygu waxa weeye khaatumo iyadu inooma baahna khaatumo iyadu inooma baahna innagaa u baahan inaynu danaheena iyo nolosha dadkeena iyo deegaanadeena aynu ku gaadhno aynu ku dhisano oo aynu aragno magaalada garoowe magaalada dhinaca kaa xigtay hargeysa xamar meel walba siday u iftiisan tahay inaynu iftiimino khaatumo mid iyadu inoo baahan maaha khaatumo dadkaa u baahan anigaa u baahan adigaa u baahan qof kastaa u baahan ka dhalan doona haddii ilaahay nafteenu daayaa u baahan balse waxaa iga dardaaran axmed adoo aan filaya inaad ugu tiri su-aasha waan ku gabagabinayaa nimankaa hargeysa jira iyo nimankaa garoowe joogaba waxa aniga igaga daran nimanka qurbaha jooga ee beesha u dhashay anuma odhan karo reer khaatumo maaha laakiin beesha u dhashay ee marka ay banaanka taagan yihiin quruxdooda iyo karaamadooda aada yaabayso ee haddana khaatumo lugooyada la daba socda xumaanteeda raadinaya inay burburto raadinaya nimankaasi meesha ay u socdaan iyo waxay doonayaan baan axmed garan waanaad mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdi aad oo isagu ku sugan magaalada minneapolis waanu qadka telefoonka kaga wareysanay xaalada ugu dambeysay ee deegaanada khaatumo state inta aanu ka kulmi doono barnaamijkan oo kale ah waa anigoo ah axmed laari waxaanan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo